jaaliyadda talwadaag ee adduunka dacladiisa ku sugan ee ka soo jeeda Galmudug ayaa deeq ka kooban raashinka noocyadiisa kala duwan gaarsiisay ciidanka daraawiishta Galmudug ee ku jira xerada Dhaankaroone ee degmada Galinsoor ee gobolka Galguduud. wakiilo ka socda talwadaag oo ay horkacayso abwaanada Saaradda Ahrimire ayaa sheegtay in deeqdaani oo ay iska soo arooriyeen jaaliyadaha dibadda loogu talagalay in lagu garab istaago ciidanka daraawiishta Galmudug ee fadhigoodu yahay degmada Galinsoor, kuwaasoo haya shaqo adag oo ay dadka deegaanka u riyaaqeen. waxaana deeqdaani ka mahad celiyey maamulka degmada Galinsoor iyo saraakiisha ciidamada daraawiishta Galmudug ee ku sugan degmada Galinsoor oo sheegay in deeqdaani ay ku soo aaday xilli ay u baahnaayeen. Bismillahirrahmanirrahim. waxaan joognaa maanta degmada Galinsoor waxaana wadnaa raashin deeq ah oo isugu jira bur, bariis, sonkor iyo saliid. raashinkaas waxaa noo soo wakiilatay inaan idin soo gaarsiino jaaliyadda talwadaag. raashinkaas waxa maanta aan ku wareejinaynaa gudoomiyaha degmada Galinsoor Xasan Muuse iyo Nabadoon Cabdulaahi iyo dad kale oo degmada Galinsoor ka mid ah oo iyaguna deegaanka jooga oo goobta jooga laakiin aan hadda idin muuqan. dhammaan dadkaas way ka mahad celinayaan jaaliyadii soo dhiibtayna iyaguna way mahadsan yihiin. waxayna ugu talagaleen raashinkaas walaalahooda ciidamada deegaanka difaaca ee Dhaankaroone degan aaga degmada Galinsoor. ciidamadaas waxay soo wakiisheen gudoomiyaha degmada iyo nabadoonada magaalada iyo saraakiil kale oo ciidan oo deegaanka jooga oo yiri muxuu ahaa idinka naga wakiila xilliguna waa xilli habeen ah. markaas waad mahadsantihiin dhammaantiin naga gudoomo raashinkii. Bismillahirrahmanirrahim. halkan waxaan ka salaameynaa wafti nooga yimid gobolka Mudug oo halkaan ugu soo booqday maanta galinkii dambe. halkaasna waday raashin ay ka soo qaadeen gobolka Mudug oo u wadeen ciidanka ku nool degmada Galinsoor oo jiidahaas degan oo raashinkaas ay soo dhiibeen talwadaag. waa uga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol. waxaan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo. meeshaas waxaa ka jirta baahi baa ka jirta. waa meel furun iska ah muddo 30 sano ah xaaladaas ay ku jirtay dhibaato. meesha haddii dagaal ka jiraan oo dhib ka jiro waxaa ka jira dhibaato badan sida maadaama ay saahayn dad dawlad taakuleynayso ama hay'ad taakuleynayaan ama gacan kale ay taakuleynayso ay saahayn oo yihiin dad xoolo dhaqataa oo reer guuraa oo meesha degan. meesha Sembirina difaacani isaga jira xabadu isaga socoto dhibaataas ay ka jiraan. walaalahood baa u soo gurmaday raashinkaas ay u keeneen
waa uga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol waxaana leenahay arrintaas maanta aad bilowdeen tala wadaag waxaan ka codsanaynaa inaysan dadkaas iloobin walaalahooda oo dhibkaas ku jira meel dagaal ka jiro horumar ma gaarto waxaa laga faa'iidaa lagama faa'iida waa khasaaro waxaa ka jira dhimashada dhaawaca barakaca intaas iyo hanti burburta intaas unbaa dagaal laga faa'iidaa wax kale kama soo baxaan xaaladaasaana muddo 30 sano haysatay marka walaalahan waxaan leenahay waa mahadsantihiin sahrna iyo xasanna way noo yimaadeen raashinkaas waxaynu soo gaarsiiyeen raashin 110 kiisha iyo 5 kartoon oo saliida waana kaga mahad celinaynaa wixina ajir iyo xasana Allah ka siiyo waxa khayr qaban Allah ku bedelo wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaa meeshaan degmada Gallinsoor waxaa galabta loogu yimid wafdi sahro hogaaminayso iyo xasan wafdigaas waxay ka socdeen tala wadaag wafdigaas iyo dhammaan tala wadaag baan waxaan ku salaamaynaa salaamta islaamka assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdigeed waxaa naloo keenay raashin 110 kiish oo raashin ah oo ka kooban bur iyo bariis iyo sonkor iyo 5 kartoon oo saliida raashinkaas wuxuu ka socdaa tala wadaag waxaan leenahay dadkii soo bixiyay iyo meeshii laga soo bixiyay khayr badan Allah siiyo ajar iyo xasana Allah siiyo waxoodana wax barakala Allah ka dhigo meel kasto ay joogan intaas waa ducadii iyo mahad celintii midda labaad gudoomiyuhu hadda wuxuu yiri 30 sano ayaa dibka ku socday 30 ka way ka badan tahay 40 sano 50 sano xabadaas waa socotay wadanka xabad baa ragaadisay colaad baa baabiisay islaamku waa og yahay ummad kasta waa og tahay maalin yoomay meyd baa haddaan 7 bari meyd baa la xabaalaa ama ha yaraado ama ha badnaado colaadaasaa jirta wadankana wax taakuleeya ma laha dawlad male muxuu hay'ado taakuleeya ma jirto wax kale oo taakuleeya male waa dad iska reemiyiya waa dad xoolo dhaqata xoolihii colaadii baa baabiisay deegaankici baa baabiiyay dadkan waa dadkii laga soo qaxiyay wadamo badan oo ilaa soona Itoobiya dadkii ka soo qaxay bay u badan yihiin waxaan marka leenahay dadkiina maanta soo xasuustay oo tala wadaag waxaan inay kaga baahannahay annagoo inii ducaynayna annagoo inii mahad celinayna inaad meel kasta oo jirtaan inaad maanta waxa halka aad ka geysateen inaad 2 laabtaan 3 laabtaan 4 jibaartaan wax kasta ha noqdeen wadanka colaad baa haysata abaar waa ka jirtaayo dhulku caws male roob male waxba kama diin xoolaha dadka la biili jiray xoolaha raashin baa hadda la siiyaa geel iyo ariba galey baa la siiyaa xoolihii meel ay ku kala baxaan male colaad baa caradii haysata meel loo kala guuro ma laha wadankii xaalufan buu noqdo colaaduna waa ka jirtaa dhibkaas dadka haya marka waxaan inay leenahay dadkii aad u dhalateen oo inishinsanayay weeye khayr Allah idin siiyo raashinkaad noo keenteenna waana soo gaaray waana inii kaga ducaynaynaa dadkii aad u soo dirteenna waan gaarsiinaynaa sidan aan naloo ku keenay baan u gaarsiinaynaa waana inii mahad celinaynaa waxaan rabnaa inaad intaas iyo in ka badanba inaad gaartaan baan rabnaa inaad wala sii dhawaataan baan rabnaa inaad ka sii badisaan baan rabnaa khayrna Allah idin siiyo waana in salaamaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh intaana u dhiibin gaashaan la saraxsan timo weyne waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo reer Gallinsoor waan ognahay in dhibaato badan ku jiraan ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa idinkana inuu ilaahay dhibka idinka saaro xilligana waa xilli abaara inuu ilaahay roob idin keeno ilaahay baa wax deeqsiin kara wax markaas ilaahay dhibka idinka saaro colaadda iyo muddada 40 sano ku jirteen ilaahay ha idinka bixiyo waana idin soo duceynaynaa la isku wada duceeyo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa tala wadaag iyo ummadda aad wax soo gaarsiiseen
وحالي علنا وما قلنا عدنا وما مقلنا أنا وحن كتر سنة عيدن كويسيل دفاع وقتشرة ما أنتنا وحن لسه على السهرة والله شقين هاي وانتاشين كنا شو قارشي وحي أسود يبتين أنه مسؤول ضدك إن الكوجود يبينا قارشيني هل كان يكعد هاي هذا ضدك لنا وما مقلنا دنبينا الله ضعف دنب والدكين تساقدنا إلهي وبحشي بوس كانت كسر يبتين مثل خير بدن الله ينكو بدلو ضدك لو ما مقلنا عنا أن تلا لها إن قايم ماله أنا ود تلوياك وأكو صبيري تلا كان هدان لو ولا فريسن عنا وحب تري ما يستحق واحترم هي دجال واحترم هيو وحلا ربا ضد مير قبل دول كان كما هارين وحير باكو هاري وحير تلوياكي إن ضد صوت الآن بعد الرجال جدية أو تمادان أو دول كعجين كو عرفتان أو وحلا بدل ضدك عنا ذو وح قيمان مية لان هدان تلاتشرين هدان أنا وهذا أنت عن صابر درين أو أن ضياشين أو الضمني أن قدومية وأن وحوليين بابور كسر صارنا وحن كبقنا هنا ميل ده كل مان مركز سيد أن يوصل بيتين من أنه يوصل جارشيني سهرنا ويشقين إسا أنه والله شقين إن ضدك وحقبتنا والقول يا وقال إذا كان ده وحصاد دري ضد بان وكين دري ما هو سوى حسود ليبه سهرنا يقول حاجة يعني نور بلوكاتش ما يكرنا إلا عيدا كهيني يعني ماشي جيسوا حل جاسيني عدين بان أنا وصار رعاي هوبين يحق كل ده تشوفني من الأواجر أنا تشوفين ما هن وأنا يريد عينينا وأنا وضعنا واسنا قالنا أنا أنت أصلا وبحها هي شفتي الله نوافق شيء تلاذنا هالقدرة إن لو تشدوا السكيم هذا ده كادين السكدرة وعيبات هل كان ظلمي بالأمة السكدرة كو الدفاع كتير على السكدرة هي قضاياش على السكدرة هي علماء ذي بكرة صفن بل ما هذا عندنا كنا عرقنا عديل هاي إننا وإحنا نجبد الثاني وحنا ندم وإحنا نجبد الغون ورانكره حبل أفضل أساس على سكتير هيو وده كيف فائدة هيو طلنا كل معنا هي مساكيني تلولاقي وما حسنتين أنا وأنا كل شيء غتك ماشي وإحنا جينا وإحنا كجينا عديل هاي إنه حبدنا وكتير هذا مالين كستانو باقي مدة ما هي أدان سهرات ده بالريحة جينا وصلوا قد بان شاء الله عديل هاي إنه وأنا إن السلام هي قد كان كواصعنا